turkigu waxa uu muqdisho gaar ahaanna dhanka badweynta hindiya ku leeyahay saldhigga militari ee ugu weyn oo ay ka dhisaan meel ka baxsan dalkooda waxaana saldhiggaasi loo yaqaanaa turkisom ama turki soomaaliya saldhiggan marka laga soo tago inuu yahay xarun ciidan oo ay ankara leedahay waxa uu door weyn ka qaataa tababarsiinta iyo laylinta labada ciidan ee gorgor iyo haramcad oo ay ankara tababarto gorgor iyo haramcad waxa ay maraan laba tababar oo adag kan koobaad ee kala shaandhaynta ama miiridda hadba sidaad u taqaan waxa uu ka bilaabanayaa geedigiisu dugsiga ama saldhigga militari ee muqdisho waxa uu soconayaa 3 bilood oo xiriir ah waxa ay qaataan casharro kala duwan oo noocyo leh tirada ka bara mooste ama ka gudubta tababarka muqdisho waxay u socdaan xarunta kumaandooska turkiga ee gobolka buuraleyda isbaarta ee turkiga halkaa waxa ay ku qaataan casharro kale oo adag cimilada ayaa isku beddesha buuraleyda iyo qabowga darina waa u wehel waana aag loogu talagalay tababarro militari 9 cisho oo kale ayay ku qaataan halkan labada ciidan ee gorgor iyo haramcad waxa ay kala wataan laba tababar oo kala gooni ah mid kasta waxa uu qaataa tababar nooc ah haramcad way ka halis badan yihiin ciidanka gorgor maadaama ay yihiin askar u tababaran liishka ama shiishka sidoo kale loogu talagalay ka hortegidda rabshadaha weerarada magaalooyinka ka dhaca gaar ahaan kuwa lagu bartilmaameedsada madaxda dawladda ciidanka gorgorna u tababaran yihiin ka qayb qaadashada dagaalada militari howlgallada gaarka ee beegsiga shakhsiyaadka la doondoonayo waana ciidan loogu talagalay aadidda meel halis ah oo aan gurmadkoodu si fudud ku soo gaari karin marka laga soo tago ciidankan inay haystaan tababarro la xiriira ku dagaalgelidda hubka noocyadiisa kala duwan waxay haystaan tababar kale oo isna la xiriira dhanka militari sida orodka ka tallaabidda jidgooyooyinka iyo guud ahaan noocyada tababar ee jirdhiska shaki ma leh inay ankara dhistay awood xooggan oo ay soomaaliya leedahay maanta gaar ahaanna labada ciidan ee ugu xooggan oo ka tirsan xoogga amni ee soomaalidu hadda ay ku naaloonayso caddaymaha loo hayo labada ciidan tiradoodu waa mid iska yar waxaase khubarada amni ay bixinayaan qiyaaso kala duwan marka laga soo dheegto goobaha ay kaga sugan yihiin gudaha dalka haramcad oo loogu talagalay ka howlgelidda magaalooyinka iyo ka hortegidda weerarada madaxda ficilada argagixiso iyo dagaalkadiisii waxaa lagu qiyaasaa 800 ilaa 1000 askari dhammaantood waa dhallinyaro ay soo barbaartay intii ay burburtay dawladdii dhexe ee militariga ahayd ka soo baxay dugsiyo sare lagu xulay shuruudo adag qaarkoodna waa ciidan horay uga tirsanaa niisa hay-adda sirdoonka qaranka oo dib loo tababaray haramcad inta badan waxa ay sitaan hubka fudud mana ku dagaalamaan hubka noocyadiisa kala duwan ee waaweyn taasoo kuu muujinaysa sida ay ugu carbisan yihiin shiishka iyo howlgallada qorshaysan waxa ay kaloo inta badan xirtaan tuuto ka duwan midka ay qaataan xoogagga amni ee dawladda federaalka ee soomaaliya si fudud ayaad uga dhex aqoonsan kartaa kolonyooyinka militari ama ciidan ee dhex maraya gudaha magaalooyinka gorgor oo iyaguna tababarro gaara qaba waxaa tir ahaan lagu qiyaasayaa 3 ilaa 4 kun oo askari waa ciidan si gaara u qalabaysan misna dagaal kasta ka qaybgeli kara madaxweynaha puntland siciid deni oo dhowaan hadal ka jeediyey garowe waxa uu sheegay in gorgor iyo haramcad ay yihiin ciidan aad u tiro badan sidoo kale ay wataan taangiyo dagaal tiradooda waxa uu sheegay inuu ka cabsanayo inuu ka nixiyo dadka balse uu sheegi lahaa wuxuu kaloo sheegay in ciidamadan aysan wax naxariis iyo jixinjixtoona lahayn waxa uu idaafeeyey inay ka maran yihiin adeegsiga qabyaaladeed ilaa iyo haatan kuliyadda turkisom waxaa ka qalan jabiyey 5 guuto oo ciidan sida uu sheegay safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiga waxaana uu tilmaamay in guutada shanaad ay ku biiri doonaan 2500 oo askari kuwaasoo horay Turkigu u tababareen iskaashiga iyo dib u dhiska militariga Soomaaliya ee Turkiga iyo Soomaaliya waxa uu qorshuhu yahay in ciidamada lagu tababaro xarunta isbaarta ee kumaandooska tiradooda la gaarsiiyo 15 ilaa 16 kun oo askari si ay markaas tirahaas u noqdaan 3 meelood oo meel ciidanka dawladda federaalka awoodna ugu yeeshaan inay amniga kala wareegaan amisom sida uu xaqiijiyay safiirka Turkiga ee Soomaaliya shaki ma leh
dib u soo kabashada xoogagga amni ee Soomaaliya hase yeeshee caqabadaha ugu weyn ee ay la kulmayaan waa dhinacyada siyaasiyiinta ee Soomaalida oo hadba nooc iyo magac gaar ah u bixinaya